لله الملك العلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخيرته من خلقه صلوات ربي وسلامه عليه. سادة الكرام وإخوة الأعزاء، شركا شر علماء أهل السنة والجماعة ودن كينيا سوماليا كل قن يو شعب كرركية دمان كسو قيب قلان قيبة كمد سوماليا علماء قيبة كمد كسو قيب قلان إثيوبيا علماء قيبة كمد كسو قيب قلان جوجان الشركاس جوش وحافظي علماء مكينة أهل السنة والجماعة يا جوش فدي علماءنا مركز إعلام يرتانك وبحيي وحنا مركز تبواجب كعلماء الإسلام كمالكستو جوجان دينتي إن الدفاعان إن النشريان ومدة إن حق يوناج وشجان منكر كحمانتنا يكرهبان مركز أنجو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلهي والنفر سبحانه وتعالى أنجو أمرك إلهي قادرنا سبحانه وتعالى أمرك النبي قادرنا عليه الصلاة والسلام أيها شركة علماء الإسلام كأهل السنة والجماعة ويرى أو هجانك أمدا إنه أمدا وحلينا هاي دمان مشايخ الرمكينة أنا كهلا لسان كودي يعد كودي كهلا وحلينا إن شاء الله ترى كسر لهذا الشركة ونوفرين هاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ardadaas maanta inoo qaaday iyo dhammaan ardada markas maxamuudiya iyo dhammaan ardada ahlu sunna wal jamaa ilaahay xifdiyo. faatixa. سيدي الشيخ محمود الرحمن يوسف خير بدن الله كجزايو حفظه الله الله حفظيه وحوين أيو مانتا إنو قبتي دمان isagoo ku hadlay maraakista ku taala magaalada Makiina waxay noo suura galiyeen ijtimaacan ama multaqahan qiimaha badan oo culamaa diinku uga hadlayaan masiibada cusub ku soo korortay dadka Soomaaliyeed ee ku hadla luqadda afka Soomaaliga oo ah madhabka Shiicada oo awal adduunka wax badan wadamo badan laga sheegi jiray laakiin maanta Soomaaliya ku soo bilaabato ku cusub marka qolada xukunkooda waxa uu yahay iyo waxa diinta islaamka ay ka qabto iyo waxa ay diinta maaragtay qabaa'ixdooda waxyaabaha kutubtooda ku qoran culimada ayaa nooga hadli doonta. shiica waxay bilaabatay zamankii sayidina Ali ibn Abi Talib sida xaqiiqada ah ee la ogaadayna waxa aasaasay nin la dhihi jiray Abdullah ibn Saba al-Yahudi ee yahuud u dhashay ee munaafiq ahaa ee ku gabanayay diinta islaamka ee marnaba aan muslim ahayn horta kaasaa bilaabay. waxay yiraahdeen quraankani maxfuud ma aha macsuum ma aha ma dhowrsoona waa la bedelay qaar Abu Bakar baa bedelay qaar Umar baa bedelay qaar Uthman baa bedelay quraankii waa bedelan yahay tuugadii baa halaysay saxaabadii baa halaysay waxba ka maqan bay leeyihiin markay fasirayaan inna allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wa yanha 'anil fahsha'i waxay ku fasirayaan kuwa la yiraahdo raafidada waxay ku fasirayaan wa yanha ilaahay uu idinka reebay 'anil fahsha'i Abu Bakar wal munkari Umar wal baghi Uthman saasay ku fasirayaan ahlu baytka laftiisa ceebay ka sameeyeen waan jecelnahay iyo كذا أي ليه هو بين مجعل جعل معها جعل كأيال البيت وشجعنا ونبي الله عيسى جعل كأي نصارى وشجعتي أما يهوذا وشجعتي أو كلوي يا نصارى وحيت النبي عيسى وان جعلنا هاي مركز دم بحير هذين ابن الله إله ويلك يسوي مركز دم بحير هذين واب إله لفتيس يهود وحيت عزير وان جعلنا هاي عزير وحي قارسين ابن الله إله ويلك يسوي يده ننسى أوفي عن
ilaahay un baaba dhali kara qof kale dhali kara ma ya ahlu beydka jacaylka ay u sheeganayaan waa noocaasi weeye been weeye shiicidan la ka soo bilaabay zamankii sayidina cali radiyallahu anhu cabdullaahi ibnu sabaa lanka laraaw oo yahuudiga ahay soo islaami eray munaafiq ahay islaamnimadiisna run ahayn marka nimankan laadciyaal may baa sheegay nimankan xukunyo calaa dalaalin wa kufrin inay ka sugniin inay la dilaaw dilshoona banaani gaalayihiin yaka edaay ibnu kathiir imaamu maalik maya ku guuriya ra'iisoona ba kufri nimankaani gaalayihiin yasku guuri imaamu albuweyde imaamu shaafici may baa ku dheegyaray markii aan su'aalay falaa tusalli khalfa araafidi nan raafid la gadaaljay salaadan kahiratooy waxyaalaha berigii hore aynu ka badbaadnay waxaa ka mid ahaa firaqa aynu ka badbaadnay shiica ka mid ahayd ee waddankeena aan lagu aqoonin hadda si toosay noo soo dhexgasho shiico meelaha ay soomaalidu degtoo dhanna way ka jiraan waana wax la wada og yahay wax yar kutubta shiicadan marka aan ka soo naqliyo insha Allah wax yar inaan ogaano hooy Caaisha dhibaatada u geysanayaan iyo sida ay leeyihiin iyo inay nimankaasi ay yihiin niman diinta islaamka aan daa'iradeeda xataa ku jirin kutubtooda waxa ku qoran kutubta 12 sheegayna waxaan soo qaadaynaa kitaabka la yiraahdo Wusulul Akhbar oo uu leeyahay ninka la yiraahdo Husayn al-Aamili qofkii raba wuxuu ka fiirin karaa safxada 779 anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ashara ila bayt Aisha wa qala ra'sul kufri ha huna ra'sul kufri ha huna wa kitab ay leeyihiin ayaga waay oo qofkii raba hadda uu ogaan karo waay gaalnimada gurigiisa waa oo guriga yaa iskala soo guriga nabiga maaha alayhi salatu wasalaam sidoo kale كتاب كليرا أنوار النعمانية أو جزائري نعمة الله الجزائري نليرا شيعي ولايا هاي السجن وحلايا هاي أول عداوة خربت الدنيا وبني عليها جميع الكفر والنفاق إلى يوم القيامة هي عداوة عائشة بالله هو عائشة عداوذي أي النبي يا إسلامك يا هو فاطمة أوقبتي قال نما يا منافق نما ما شاء بكتمد بالله كصاب برقته nimankaas oo ma aragtaan meesha ay gudbayaan siraad al-mustaqim kitaabka la yiraahdo li mustahiq taqdim kitaabka asagana ninka iskale oo shiiciga ah kitaabkaas wuxuu u sameeyay laba fasal oo khaas ku ah hooyo Aisha iyo hooyo Hafsa labadana wuxuu ku kala magacaabay al-fasl al-awwal faslun fi ash-shurur bir hooyo Aisha kaga jeeda al-mu'minin meesha ahayd فصل في الشرور بير ساسكم مقعابي أولئك مبرؤون مما يقولون إلهي مركو يري وحزنا ذا لقبر يالي نبي وياني عايشة ما هم بالله زانية هنجرت ساسو الله مركو وحا سيود وذكرنا ما بأهن إن بدن بأنه كسو قورينا إمامك ابن كثير وحكوير تفسيرك ابن كثير أجمع العلماء رحمهم الله تعالى قاطبة على أن من صبها بعد هذا أو رماها قفكي وحكجما أما وحكشيغا أما عايا هاي عائشة بعد هذا انت الله صار شيء قرآن كان يا وحي كان يا أحاديث كان يا أدلة الله صار شيء بعد جد قفكي أفهمه الله بتا أو وحى شيء سيد الرافض ضد كله علماء وحي كل إجماعين أنه كافر لأنه معاند للقرآن وقال قرآن كإلهي معاند ودينت إلهي كهر يمد وقال لمديسة ليسكوا فقسيا سيدنا الحسن وحي لين فرع عيسى إمام ينا معها وحيهين ملها وانا فسقه من الله عسكن كرا سيد حسن وحو كفر عمه الشرف بيجعله يبال الله وحسن يحسين سؤال بدي أولاد النبي ما عليه الصلاة والسلام حسين أولادي سنتلقات حسن محل أطور لغرض غرض إليهين وهي معها إيشك جعيل أهل البيت معها ninka shiiciga maxaa loo garanaya ninkan haduu shiici yahay calaamo aan ku fahmi karno ma leedahay salafkii baa u yeeleen annagu uma yeeleen
سلف كيبا ويالان لسان الميزان وحافظ كليرا ابن حجر أولايهي إيا ميزان الاعتدال والذهبي أولايهي إيا كتبت كلابا والغصة قاضي وحير هذين الشيعي الغالي نينك الشيعي أو صاحب القلوب شيعة نمنك قلاد اللي يراد وكو الله كلا قادو اللي يراد نمنك قلاد دابا قالأ أضوى النجاسة مخففة مغلظة سومرا نجاسة وحوى النجاسة وحلا مركا إمامكو الشيعي الغالي في زمن السلف زمن كالسلف كمركي لقاها الله نينك الشيعي أو كم ذا قلادة أو غالي من تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية قفكي سيد معاوية إيو سيد عثمان إيو سيد زبير إيو سيد طلحة إيو dadkii ma aragtay xuruubta ay dhex martay qofka ka hadlaya oo dhex galaya oo saxaabada qaar duraya qaar ma aragtay amaanaya wax sheegaya shiiciga qulaada kamida kaawe lisaanu miisaal ka dhigay annagana waxa laga yaabaa hadda aragna nin wax sheegaya inaan iraahno bal ninkan wax buu sheegaya xogaa aan fiirino oo nin haddaad aragto asxaabta nabiga wax yar soo qaaday haddaad aragto shiici way lagu ma shakinayo bal culimadii salafka ahaa waxay dhihi jireen وغالي شيعي هي علامة اللي يقول يقانا وحا كمدا هدي الشيعة وح لغا شيغو الشيعة هدي وح لغا شيغو أمام مبادئ دو هدي لغا شيغو هدو إسقاليو وعراريو وصن ما ركت هدي كدور سنيو لبسنيو هذا من علامات التشيع وعلامة اللي يقول قرانيو قف كاسي إنو شيعي هي وشيعة الرعسانية علامة اللي يقول قرانيو هي markaan ku soo dhawaano xukunka cidda caysa saxaabada waxa ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo rasuulkiisa ay aimada ay ka yiraahdeen fadilatu shaykh ad-da'iyat al-kabir Sheikh Hussein Sheikh Tayyib al-mudarris falyatafaddal mashkura waxaad ogaataan shicaarka weyn ee shiicadu leedahay inay tahay saxaabada rasuulka oo la lacnada shicaarkooda koobaad waa shicaar waxay ka dhigteen weeyaan dadkii oo warasatu nabiy ahaa xamalatu shariica ahaa dadkaas ay lacnadayaan iska dhaaf asxaabta rasuulka ee dadka muslimiinta caadiga in la caayo diintu ma ogolo saxaabada rasuulka iska daa ruux muslim ah oo caadi ah inaad caydo oo wax ka sheegto cirdigiisa aad ku gafto diintu ma ogolo maxaad u malay markaa saxaabada rasuulka sallallahu alayhi wasallam rasuulku wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam la tasubbu ashabi la tasubbu ashabi ana asxaabtayda ha caayina marka nahyigaasi waa nahyi oo ku tusinaya tahriim rasuulku markaa wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam ninkii aaya faman sabbahum fa alayhi la'natullah naxariista ilaahay oo laga fogeeyo korkiisa ha ahaato iyo wal malaa'ika malaa'ikta iyada lacnadeeda korkooda ahaato iyo wanaas ajmaciin saddexdaas lacnadiisu ha ku dhacdo ninkii saxaabada rasuulka marka masha xadiidka waxa u dalishanaysa ninka saxaabada rasuulka inuu yahay mal'uun mal'uunna illa la fariisto diintu ma ogolo nin lacnadan إمام مالك باوحول من شتم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أو عمر أو عثمان أو معاوية أو عمر بن عاص فإن قال كانوا على ضلال أو كفر قتل أبا بكر أو عمر أو عثمان معاوية عمر بن عاص ورجع كاسو قال يا المركور معاوية عمر بن عاص مركي الدنيا صحابة إن الدوران كون صومالي مركور الله حاجة بالله بيان وحولي هدي وعايا كواس oo ku sheegay inay baadi ku sugnaayeen iyo gaalnimo waa la dilayaa haddana loo dili maayo waxa loo dilayaa kufran gaalnimo loo dilayaa waxaan ku soo dhaweynaynaa al-sheikh al-faqih al-muhaddith al-allama al-sheikh Ibrahim muallim nur sheikh Muhammad falyatafaddal mashkura بعد السلام وحمد وعينا يا الله سبحانه وتعالى ودينتا إسلام كأنه من نيسي الحمد لله ونقل لغي أهل السنة والجماعة طرق الصوفية وإلهي نقبت بهذه ضلالك وثانيا علماء دينك سورة قليسي حضور كان ماشا كدعي وماشا أنا سوء ماذن يسكن ميدو حقي أنك هذا حكم من سب الصحابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد كي عايو وحي دين تيني إسلام كأيكا قبطو علماء ديني السلف وصالح وحي كي لاهدين أيان قيبتي دنبيسي آن دميسير أيام وقد صرح الإمام العلامة الحافظ الكبير أبو جعفر الضحاوي وتقانين من الحنفية
wuxuu cadeeyay anna bacda saxaaba anna buqda saxaabati waxdahu kufrun asxaabta rasuulkeena loo caroodo kaligeeda inay kufri tahay faqaala wuxuu yidhi fii caqiidatihi almashhuurati caqiidati ahli sunna waljamaaca وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان حبهم أصحابك رسولك الله جعل كودا دين ودين وإيمان إيمان وإحسان إحسان وي وبغضهم نعيب كودين كفر وقالنمو ونفاق منافقنمو وطغيان حد ولا قبح ولا قوقوي ومن أئمة السلف الصالح أئمة السلف الصالح الذين صرحوا عديين وغضعوا كفى من صب الصحابة أصحاب أحدك عايو أما عدي عايسو إني قال تهي قويي وحكمده رضي الله عنهم الإمام المحدث شيخ الإسلام بشر بن الحارث الحافي حيث قال من شتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحير أحدك عايو رسولك على أصحاب تيسا فهو كافر وقال وإن صام وصلى وزعم أنه من المسلمين هذا الصوم حد كذا هالشيكت إنه مسلمين تكميديا هي وقال الإمام الأوزاعي الإمام الكبير ولا يقانا وحليه هي من شتم أبا بكر الصديق أبا بكر الصديق أحد كي عايو فقد ارتد عن دينه دينك سوا كردوي وقالوا وأباح دمه ليجي سنواب بنيي waxaa ka mid ah dadkii cadeeyeen sabu saxaaba asxaabta rasuulka alla caaydiisa inay gaalnimo tahay al-imaam al-muhaddith sayyid al-hufaadhi abu zur'a ar-razi waxaa ka soo guuriyay al-haafid abu bakr al-khadib al-baghdadi bisanadihi ila al-haafid abu zur'a ar-razi annahu qala wuxuu ila abu zur'a idha ra'ayta rajulan yantaqisu ahadan min ashabi rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam hadii aad aragtid ahad nusqaaminayo oo hoos u dhigayo nin hadaad aragtid oo hoos u dhigay ahad asxaabta rasuulka alla kamid fa'lam annahu zindiq inuu zindiq yahay zindiq waxa la yiraahdaa kan gaalnimada ay u qarsoon tahay ee islaamnimada banaanka dhiganayo al-haafid abu bakr al-khallal waxa uu warinayaa fi sunnati kitaabki sunna la yiraahdo bisanadihi ila musa ibn harun ibn ziyad annahu qala wuxuu yiri sami'tu al-firyabiyya firyab ayaa maqlay firyabi wa al-imam al-hafiz شيخ الإسلام أبو عبد الله محمد بن يوسف الضبي الفريابي من مشايخ البخاري وأحمد إمام البخاري إمام أحمد مشايخ ذواوين أيو كمدها ورجل يسأله نن أو سؤال يو مركو مغلا يو نن كان سيئة ورجل يسأله عمن شتم أبا بكر وحو مغلا نن أو سؤال إمام كوين أبو بكر أحد كعايو قال كافر وقال بويري قال وحو يري فيصلى عليه ما لو دكنا هديو دنتو قال لا ما يري لو ما دكنا يو وسألته وحن سؤال كيف يصنع به وهو يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله أي ليها يسال صنعينا قال وحو يري لا تمسوه بأيديكم قعمهن كطاوننا قعمهن كإلى شدا ارفعوه بالخشب قرئ كقاده قاده حتى تواره في حفرة إلى قدك أتكو أسرتان jirkiina ka ilaaliya inaad taabato jirkiisa oo taabto marka waxaan ogaanaynaa nimanka rawaafisha la yiraahdo iyo wixii jidkooda qaaday boo anaga magaca inay wataan dan ma ahan ahad kaas oo saxaabada wax ka sheegto in nabiga alla ay dhibeen nabiga oo la dhibinay ee gaalnimo tahay al-imam at-taqiyuddin as-subki ash-shafi'i wuxuu jazmiyay rahimahullahu ta'ala fi fatawihi biqatl man sabba as-sahabata 'alanan asxaabta ki aayo si calan ah muuqato u aayo in la dilayo faqala wuxuu yiri lima fihi wuxuu ku sugan min idaa'in lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam dhibataan oo asxaab nabiga alla la dhibaa ku sugan wa i'laa'il bid'ati wa ahliha bid'ada kor loo qaado iyo ahlkeeda ku sugan saadaradeeda ayaa loo dilayaa buu marka waqad nassa al-imam abu al-hasan wuxuu cadeeyay ali ibn sultan al-ma'ruf بملا علي القاري في كتابه شم العوارض في ذم الروافل شم العوارض في ذم الروافل كتاب ليراهدو وحو عديي على أن من سب الصحابة أحد كي صحابة عايو كافرون قال إنه يهي قال يهي بدليل الكتاب والسنة
kitaabka iyo sunnadana cadaynayaan wasaraxa aydan waxa kala uu cadeeyay sheekha mulla cali al-qari min kitaabihi al-madhkur biqatl dhalika as-sab ka'aida samay in la dilayo haythu qala markuu yiray fayuqtalu as-sab ki ayay lis-sahabati ayay min al-da'ifati al-kharijati war-rafidati rafidada iyo kharijida khawarijta ayaa kharijida hada kharijida iyo rafidada عدي عايشوا أصحاب رسولك إن الدلاء أيو عدي. الإمام عبد الغاهر البغدادي كتاب كيس الفرق بين فرق صفحة شن بقول يوحى ويصدق هذا إلى شن بقول يوحى اللي لا يجاره هذا الكوسج وحكوس وجوريا وحي وما رأينا وما سمعنا بالنوع من الكفر إلا وجدنا شعبة منه في مذهب الروافض بيري. ما أنا أرق بيري ما أنا نقل نوع كم من النوعيات كفرية. الإسلام كالله ربه ما أنا أرق إلا منه إلا وحي يري هذه تربة إلا وجدنا شعبة منه في مذهب الروافض بير وحن هاللي بي قريب كم من الجال الماضي وحن كهاللي بير مذهب الروافض أنو كهاللي بي مذهب الروافض أيانو كهاللي بي نمان كأيجا مركب واحد أركيسان أو أيجا هرنا أيجا عقبة حكم كأي كقاتين صحابة علماء الإسلام كإنه يهي إنه يهين ردة إنه يهين ده واحد عن المسلمين أهين حرمة إسلامنا عن لهين ويهبيراتي عن لهين وها مركن لدونا يلا ربع أيضا إنسا هرت إذا الله قاعده ما أهان ضد المسلمين وهذا ديد وحوي اللين يدل هذين نقطه هذا تاس واحد كحرن تاي الشوك كحرن تاي الجونية الساكت عن الحق شيطان أخرسه ذات كيني وحد أمتي وحير وما أنت دقائق ويريه حقي أيوة أركاي أو لكل لغة تمري أي آموساي مخلوق إنا أطيعنا وأما قبيل أنكو أطيعنا أنكو حشمينا أما أن مرثي قرابني ممكن أنكو حشمينا أما والعق أفنسي أنكو حشمينا مخلوق وإلهي دا عديسي قبل عدي إلهي أنك بحنا ويا مرثي بعدين نلوينات فإذا مرثي مدة ذلو إن بدي وما شاء الله الاكتواي انت يراد الشيعة عربت إن استراعصت شيعة إنا المسلم هاينا هل كان عاول لقى عدي ودينة إسلامك أين كسرني سؤال الواحد ترى الرجع مصير رياء مصيرات وهذا قبل على السنة ما أنفع عيسو السيدة هذا أن كجرن وحلاص على أولاد دين نواي يجيل شرطان به وعنا يسنا علم في عن أو وعي له oo duruufaha xaaliga ee jira la socda oo ahlu turuq ah marka madaxdeena intaan la tashano ahlu sunna wal jamaa hurdada ka tooso marka ahlu sunna wal jamaa inagoon go'aan gaarin yeynaan kala tagin culimadu gaar ha u baxdo yaa u maqan dadkii cid u maqan male marka waxaan idinku dardaarmi lahaa inagoon tashaniyeynaan kala tagin wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجد ورمرتيد علماء أهل السنة والجماعة إيجيز كأفريكا أيا شير لوغا هادلايو قطرتا إيو دباتادا كوحدا شيعادا كوقاباتاي مغالدا ماكين رود قبل حبيتكا دالكا كينيا علماء أو كاكوبنا أهل بيتك رسولك عليه الصلاة والسلام مدرسينتا iyo sheekhu dariiqaha dalalka geeska Afrika waxay ka kala yimaadeen deegaanada kala duwan ee dalka Kenya sida Nairobi, Garissa, Wajir, Mandera, Tana River, Coast iyo xeryaha Dadaab iyo Kakuma iyo sidoo kale dalalka Ethiopia, Soomaaliya iyo dalal kalaba deegaankan geeska Afrika oo awalba la ildarnaa fikirka xagjirnimada ah ee khawaarijta ee aan dad iyo diin midnaba hanbaynayn ayaa haatan qatar hor leh kaga timid kooxda shiicada taasoo laga yaabo in dadka Soomaaliyeed qaarkood ay ku kadsoomaan haddii aysan culimadu si weyn oo waafiya u cadayn waxa diinta islaamku ka qabto shiicada iyo caqiidadooda sidaas darteed muddadii shirku socday waxay culimadu si weyn uga baarandegeen taariikhda iyo mabaadi'da shiicada waxayna soo saareen warmurtiyeedkan culimada ahlu sunna wal jamaa waxay isku waafaqeen kow in asxaabta nabiga calayhi salaatu wasalaam
iyo xaasaska rasuulka oo ah hooyooyinka mu'miniinta ee barakaysnaa oo la caayo iyo qur'aanka oo la bedelo ay tahay gaalnimo cad diinta islaamkana looga baxayo. lambar 2 fikirkaas gaalnimada ah waxaa hadda geeska Afrika inay ku faafiyaan bilaabay shiicada waana in la iska ilaaliyaa. lambar 3 in shiicada fikirkaas xun iyo kuwa ka sii daranba wada dadaal dheeraad ah lagu bixiyo sidii shacabka Soomaaliyeed looga badbaadin lahaa. lambar 4 in si wada jir ah looga hortago bidcooyinka shiicada iyo wahaabiyada oo labaduba qatar ku ah dalka diinta iyo dadka islaamka ahba. lambar 5 in culimada mudarrisiinta mucallimiinta iyo mashaayikhda hogaamiya masaajida mawlacyada iyo xertooduba ay meel kasta oo ay joogaanba ummadda uga digaan khatarta ay shiicadu hadda faafinayso taas oo care ilaahay iimaan la'aan iyo adduun iyo aakhira seeg dadka ku ridaysa.